السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء قنصور لاين أكاديمي. عشان كل كتير كورسيني جرامر كهيد اللغة الإنجليزية. عشان كده ما أنتوا حين كهالي دونا spelling rules for present simple tense. وحنا عشان إنه هركز على ال present simple كويح وياهي أنت قيبات وقيب سما negatives كسين صارني questions كسين صارني حرر بينه سيدو كل شيء جيني وإنه عشان إنه كل شيء جيني ما أنت عشان كده واحد نسي خاص أو برا دونا حرر كي إنه راعيني سيدا إنه وصل إنه present simple tenses. أما present simple sentences aynu sameeyno jumlada ah present simple xeerabeen u baahan inaynu raacno waliba faabka inta ugu badan s baynu ku dareynay ama es xeerarka baynu raaci doonaa waynaynu faahfaahin doonaa ee ku soo dhawaada casharka waayahay spelling rules for present simple waxaynu casharkeena ku baran doonaa saynu hordhiciisa ku soo sheegnay xeerarka iyo qawaaniinta aynu raacayno si aynu u sameeyno markaa present simple tense markaasaynu casharkeena horeba ku soo aragnay waxaad arkaysay faabiska jumladaha present simple ku inay kala duwanaayeen qaar s lagu dareeyay qaar es lagu dareeyay qaar ay isbedelayeenba iyadoo ay xukumayso markaa subject ayaa xukumaya oo waxaynu sameynaynaa mar walba oo aynu jumlado simple present aan sameynayno ama present simple aynu sameynayno waxaynu eegaynaa subject ayaynu marka ugu horeysa muhiimadda siinaynaa isaga xukumaya markaa feebkeenu soo ekaanayo laakiin feebkan aynu ka sheekeynayna waxa weeye waa main feebka maaha feeb to be oo feeb to be kaliya waxa weeye waa saddex waa am iyo cr si u kala qaataana waynu garanaynaa hadduu subject yahay pronoun si u kala qaataan waan garanaynaa hadduu subject noun yahay waan garanaynaa si u kala qaataan laakiin imika waxa laga hadlayaa waa main feebkii markaa xeerar baa la raacayaa si uu markaa u noqdo main feeb munaasib ku ah subjectigan aad isticmaalayso waayahay xeeriskaasi markaa casharkeena ku baranaynaa oo aynu hore u gelaynaa spelling rules for present simple in the third person he she and it and singular noun Ahmed tusaale ahaan we add s to the base form of the main verbs qodobka koowaad wuxuu inoo sheegayaa ama xeerka koowaad wuxuu inoo sheegayaa in the third person markuu subjectigu yahay qofkii saddexaad third personka waa inaynu kusoo aragnay casharadeennii markaynu ka sheekeynay pronounska subject pronounska weliba markaynu ka sheekeynay waa inaga nidhi he iyo she iyo it waxaa loo yaqaanaa third person singular weliba third person singular hadduu subjectigu noqdo ama uu noqdo he iyo she iyo it amaba uu noqdo magac singular oo keli ah magac keli ah markuu noqdo markani waa pronounkii markuu pronoun noqdo third persona weliba third personku uu yahay singular ama marka uu noqdo noun singular tusaale ahaan Ahmed oo kale we add s waxaanu ku daraynaa s baynu ku daraynaa to the base form of the verb waxaanu verbkii caadiga ahaa ku daraynaa s tusaalaha markaan aragnaa ayaynu caadi si fahmaynaa xeerkan waxa uu yahay tusaale ahaan she likes an apple verbku basekiisi muxuu ahaa like buu ahaa laakiin imika markaynu present simple isticmaalay subjectiguna uu yahay third person oo she ah muxuu noqday she likes an apple she plays football she reads her lessons she cooks the lunch so maratid muxuu noqonaya markaa verbku ama base formkii marka hore ahaa like read play cook muxuu noqonaya imika s baa raacayso she likes she cooks she reads she plays saasuu noqonaya marka oo waxaynu odhanaynaa s baynu ku daraynaa maxay base formka bal haddee kan we go to school no s is added because the verb is the first plural bal haddee imika kuma inaan darin wax esa maxaa yeelay tee xeerkeen intaan soo sheegnay midna maaha subjectigu oo waa he ama she ama it ama noun singulara waxaa esta lagu daraya verbkooda haddii uu subjectigu noqdo saddexdaa mid ka mid a amaba uu noqdo magac keli ah ayaa s lagu daraa laakiin hadduu intan mid ka mid a noqon waayo oo uu noqon waayo third person pronoun amaba noun singular uu noqon waayo tee s raaci mayso tusaale ahaan we go to school tee we subjectiga waa we third person maaha pronoun singular noun singularna maaha third person maaha noun singularna maaha oo waa maxay first person weliba plural maxaa lagu yidhi markaa no s is added because the verb is first plural waa first person oo weliba plural he drives a car wuxuu kaxeeyaa a car gaari buu kaxeeyaa black he drives muxuu verbka markii hore ahaa drive waxaynu ku darnay s he drives xeerka koowaad asayna odhanaya haddii uu noqdo subjectigu he ama she ama it amaba uu noqdo magac nouna oo singulara tusaale ahaan Ahmed Aasha Raxma Faarax goat lion waxa magacyada noocaas ee kelida uu noqdo waxaynu isticmaalaynaa subjectiga noocaas ah verbkiisa waxaynu ku daraynaa s it eats fish verbku marka hore wuxuu ahaa eat oo sidiisa asalka muxuu ahaa eat
laakiin imika maxaynu ku darnay s sababtaan s ugu daraynaa waa maxay xeerka aynu ugu yiri hadduu subjectigu noqdo he ama she ama it waxaynu ku daraynaa s amaba hadduu magac singular oo kaliya noqdo waxaynu ku daraynaa s Ahmed works in an office Ahmed wuxuu ka shaqeeyaa xafiis muxuu markii hore verb ku ahaa ama asalkiisu muxuu verb ku ahaa work laakiin maxaynu ku darnay s waayo xeerka inoo sheegay inuu lahaa haddii uu noqdo he ama she ama it oo loo yaqaano third person singular oo pronoun waxa lagu daraa s amaba hadduu noqdo noun singular oo magac kaliya ah hadduu noqdo si tusaale ahaan Ahmed oo kale waxaanu ku daraynaa s marka subjectiga maanta wuxuu noqday Ahmed waa noun singular verbkiina wuxuu ahaa work waxaanu ku daraynaa s Ahmed works in an office Ahmed wuxuu ka shaqeeyaa xafiis they play football waxay ciyaaraan kubadda cagta play waa sideedii waxba kuma inaan darin sababta inaan wuxuu ku daray waa maxay te subjectigi he iyo she iyo it oo third person pronoun waliba singular maaha noun singularna maaha sida Ahmed oo kale waa they marka waa maxay waa they waa second person waliba plural therefore saa darteed ku darmayna wax esa ku darmayna waayahay xeerka waxaan filaya waad fahantay aynu xeerka labaad u sii galno xeerka labaad muxuu nagu oranayaa in the third person he she it and singular noun markuu subjectigu noqdo magaca saddexaad ee kelida markuu noqdo sida he iyo she iyo it oo pronoun markuu noqdo ama markuu noqdo magac kaliya sida caasho oo kale waxaynu samaynaynaa we add es baynu ku daraynaa for the verbs we add es waxaynu ku daraynaa es for the verbs ficilada ending ku dhamaanaya with sh ficilada sh ku dhamaanaya iyo ch iyo ficilada ch ku dhamaanaya o iyo ficilada o ku dhamaanaya ss iyo ficilada ss ku dhamaanaya x iyo ficilada x xarafka x ku dhamaanaya and z iyo ficilada xarafka z ku dhamaanaya subjectigu intii aynu xeerkii hore soo sheegnay mid kamid ah hadduu noqdo laakiin verbku uu ku dhamaanayo xarafyada soo socda oo ah sh ch o ss x and z verbka noocaasa xagga dambe waxaan kaga daraynaa es tusaalaha markaan aragno ayaynu caadi u sii fahmaynaa tusaale ahaan verbki wuxuu noqday he ama she ama it saddexdaa mid ka mid uu noqdo oo la yidhaahdo third person singular ama magac buu noqday oo wuxuu noqday caasho oo kale verbkoodiina wuxuu ku dhamaaday sh ama ch buu ku dhamaaday xarfahan ama o xarafka a buu ku dhamaaday ama ss xarafka a buu ku dhamaaday amaba x buu ku dhamaaday ama sad buu ku dhamaaday xeerka noocaasa haddii xaaladda noocaasi timaado waxaynu isticmaalaynaa es baynu ku daraynaa oo aynu isticmaalaynaa verbkii asalkii ahaa aynu hore usii gallo in eegna tusaalayaasha example tusaale he goes to school she crosses the road he fixes the engine the phone buses she watches tv ficilada saad aragto dhammaantoodba xagga dambe waxaan kaga darnay es kan xagga dambe es baynu kaga darnay 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 waa xeerka uu inoo sheegayo amaba waa qaacidada uu leeyahay raaca xeerkeena labaad ee present simple spellingka ayaa inoo tilmaamaya sida uu inoo sheegay tusaale muxuu inagu yiri subjectiga eeg hadduu he iyo she iyo it noqdo amaba uu noqdo magac kaliya waxa lagu yiri ku dar es haddii uu verbku ku dhamaado sh ama ch ama o ama ss ama x ama z way verbkan muxuu ku dhamaaday go o buu ku dhamaaday subjectiguna waa maxay waa he iyo she iyo it waa xeerka labaad inoo odhanaya es ku dar waxaynu ku daraynaa marka es goes kan muxuu noqday cross muxuu ku dhamaaday ss subjectigiisa eeg waa she maxaynu ku daraynaa es maxay noqonaysaa crosses verbkan eeg asalkiisii muxuu ahaa fix muxuu ku dhamaaday x x maadaama uu ku dhamaaday subjectiguna ama uu he iyo she iyo it mid ka mid ah noqdo amaba uu noqdo noun singular oo magaca kaliya uu noqdo waxaynu samaynaynaa es baynu ku daraynaa tusaale ahaan muxuu noqday he iyo she iyo it mid ka mid uu noqday third person singular buu noqday deedna waxaynu samaynaynaa es baynu ku daraynaa waxaan odhanaa fixes hadda kan eeg muxuu ahaa bus muxuu ku dhamaaday z subjectigaynu eegina ma yahay noun singular ama saddexdan mid ka mid ah haa waa noun singular waa the phone waa mobilku waa keliya waa magac keliya maxay samaynaa marka es baynu ku darayn buses kan eeg muxuu ahaa watch asalkiisi wuxuu ahaa watch muxuu ku dhamaaday ch buu ku dhamaaday maadaama uu ch ku dhamaaday waxaan hubsanaynaa subjectiga ma he iyo she iyo it mid ka mid aba mise waxa weeye waa noun singular hadduu xaaladaa noqdo xeerkan baynu raacayna haddii uu ch ku dhamaado sh ku dhamaado ama o ku dhamaado amaba ss ku dhamaado ama labadan mid ka mid ku dhamaado laakiin uu subjectigu noqon waayo magac kaliya amaba uu noqon waayo saddexdan mid ka mid lagu dari maayo maskaxda taa ku hay mar walba maxaa laynagu yiri markaa he goes to schoolkuu aadaa she crosses the road wadaday ka gudubtaa he fixes wuxuu hagaajiyaa the engine hijinka the phone buses mobilku wuu soo dhacaa wuu gariiraa
ama ruuxan buu sameeyaa she watch TV ayay daawataa dhammaantood feebabkani waxay ahaayeen feebab markooda asal ahaan sidan ah laakiin waxay raaceen oo ay dabaqeen xeerkeenii labaad oo ah inay ku dhamaadeen o ama ss ama x ama z ama zh haddii uu sh ku dhamaadana iyadana xeerarkan kuwan aynu marinay oo kale ayaynu marinaynaa laakiin mar walba maskaxda ku hay waxaynu eegaynaa subjectiga hadduu he iyo she iyo it yahay ama noun singular yahay xeerkan waa la dabaqayaa haddii laakiin uu afartaa mid kamid noqon waayo la dabaqi maayo haba ku dhamaado xarfahan mid kamid feebkii maskaxda ku hay markaa taa xeerka saddexaad baynu gelaynaa maxaa laynagu yidhi in the third person weli waxayna daba socon third personkii hadduu subjectigu noqdo he she and it saddexdaa mid kamid hadduu noqdo oo la odhan jiray third person singular amaba uu noqdo noun singular only labadaas oo keliya haddii xaaladdu noqoto oo noqdo noun singular ama third person pronoun singular oo saddexdan mid kamid uu noqdo labadaa xaaladood mid kamid hadduu noqdo keliyata we add s waxaynu s ku daraynaa for the verbs ficilada ending with vowel ku dhamaanaya shaqal shantan mid kamid ah a e I o iyo u hadduu ku dhamaado shantaa mid kamid oo uu xagga daba kasii raaco y s baynu ku daraynaa waxaynu uga jeednaa subjectiga saddexna mid kamid buu noqdo amaba noun singular buu noqdo laakiin feebkii wuxuu ku dhamaaday maxay vowel uu kasii dambeeyo xarafka y xaaladaas hadday timaado waxaynu samaynaynaa s ayaynu ku daraynaa feebkii jumladda tusaalaha markaan aragnay ayaynu xeerkana aad usii fahmaynaa in tusaalaha galno example tusaale Asha plays football. He buys newspaper every day. Bal hadda eeg feebabkan eeg dhammaantood waxaynu ku darnay s feebabkan dhammaantood waxaynu ku darnay s baynu xagga dambe ka raacin sababtaynu xagga dambe s uga raacin waa maxay sababtaynu xagga dambe s uga raacin waxa weeye horta waa marka koowaad saddexdan mid kamid ah buu ficil sameeyay jumladu noqday ama subjectiga noqday amaba wuxuu noqday noun singular magac kaliya buu noqday ama he buu noqday ama she buu noqday ama it buu noqday afartaa mid kamid ah hadduu noqdo ama labadaa xaaladood ee la doonayo third person singular oo pronoun ama noun singular la doonayo hadduu labadaa mid kamid ah noqdo uuna buuxiyo shuruudan soo socota oo ah inuu ficilku ku dhamaado shantan shaqal mid kamid ah oo uu dabada kasii raacay xarafka y waxaa la samaynayaa xaaladda noocaasi markay timaado s baa feebka xagga daba lagaga daraya tusaalahaan waxay ahayd play iyo buy maxay ku dhamaatay vowel a bay ku dhamaatay laakiin xagga daba waxaa kasii raaca y kana wuxuu ku dhamaaday vowel u xagga daba laakiin waxaa kasii raacay y xaaladdu markay saa noqoto ee subjectiguna uu noqdo singular noun ama uu noqdo third person pronoun oo singular oo he iyo she iyo it mid kamid uu noqdo feebka waxaynu ku daraynaa maxaynu odhanaynaa plays markii horena play buu ahaa maxaynu odhanaynaa kan kale buys markii horena buy buu ahaa asal ahaan ficilkani wuxuu ahaa buy ficilkanina asal ahaan wuxuu ahaa play laakiin wuxuu ku dhamaaday vowel a kanina wuxuu ku dhamaaday vowel a labadaba vowelladii waxaa kasii dambeeyey oo xagga daba kasii raacay letter y xarafka y baa xagga daba kasii raacay feebku markuu saa noqdo subjectigiisuna uu noqdo third person he iyo she iyo it mid kamid ah amaba uu noqdo noun singular xaaladda noocaas waxaan samaynaynaa feebka waxaan ku daraynaa s xeerkaasi saasuu inoo sheegayaa waa xeerka saddexaad ee present simple spellingkiisa aynu hor ugu sii socono waayahay she pays her bill in cash Sahra lays her baby gently on the bed waa kan isna feebkani asal ahaan wuxuu ahaa b feebkanina asal ahaan wuxuu ahaa lay laakiin waxaynu ku darnay labadoodaba s baynu xagga daba ka raacin sababtaynu s xagga daba ku raacinayna xeerka ayaa inoo sheegay wuxuu nagu yidhi haddii uu subjectiga jumladu noqdo he ama she ama it oo third person pronoun oo singular amaba uu noqdo magac singular waxaa la samaynayaa feebka waxaa lagu darayaa s feebkana shuruud baa loo eegaya waxaa loo eegayaa inuu ku dhamaaday vowel uuna kasii dambeeyo y haddii xaaladaas ay dhacdo subjectigiina uu xaaladihii soo buuxiyo shuruudihii s baa xagga daba lagaga daray feebkani wuxuu ahaa markii hore b vowel a buu ku dhamaaday waxaa kasii dambeeyey y subjectigiisuna waa he ama she ama it mid kamid ah oo she buu noqday xaaladda noocaasa xeerka inoo sheegaya xeerka saddexaad baa inoo sheegayo wuxuu nagu odhanayaa waxaad ku dartaa s dadna waxaan nidhi she pays her bill in cash biilkeeda waxay ku bixisaa cash bay ku bixisaa lacagaha lagu leeyahay ee biilkeeda kana wuxuu ahaa markii hore asal ahaan lay vowel a buu ku dhamaaday y baa kasii dambeysay xaaladda noocaasa subjectigeedina noun buu ahaa singularehe s baynu ku darayn xeerkaasi saasuu inoo sheegayaa
waxaan filayaa inaad fahantay aynu gudubno xeerka afraad ee present simple tense. In third person he, she and it. weli waxayna daba socdaa subjectigii markuu noqonayo saddexdan mid ka mid ah amaba noun singular uu noun singular noqonayo. For the verbs ending with consonant, ficilada ku dhamaanaya consonant, shibanayaasha ficilada ku dhamaanaya. Shibanayaashuna waa b c d f g ilaa iyo sad la gaarayo oo aanay ku jirin shaqaladu. Plus y, ficilada ku dhamaanaya shibanayaasha xagga dambana ay way ka sii raacayso. We change y to I. wayda waxaynu bedelaynaa I and add waxaynu ku daraynaa es baynu ku daraynaa. xeerkaasi bal si inoo sheegayaan ku celiyo. waxa laynagu yiri haddii subjectigu noqdo he ama she ama it amaba uu noqdo noun singular, ficilada ku dhamaanaya consonant, shibana ku dhamaanaya oo way ka sii dambeeyo waxaynu sameynaynaa waydii baynu tuuraynaa ay baynu ku bedelaynaa deedna es baynu ku daraynaa. marka xeerkan maxaa u shuruuda? waxaa u shuruuda horta marka koowaad inuu subjectigu intii aynu soo aragnay mid ka mid ah noqdo, inuu third person pronoun noqdo oo singular ama noun singular uu noqdo magac kaliya ama he she it afarta mid ka mid ah uu noqdo dabeedna verbkuna uu ku dhamaado consonant, consonant-kana weliba verbka ay ka sii dambayso y. haddii uu verbku markaa shuruudda buuxiyo ah inuu ku dhamaado consonant, shibana uu ku dhamaado, uuna ku dhamaado y ay ka sii dambayso oo shibanihii ay y ka sii dambayso, waxaanu sameynaynaa y-da ugu dambaysa waynu tuuraynaa ay baynu ku bedelaynaa deedna waxaanu ku daraynaa yes. bal tusaalahan eeg. He cries the whole night. The plane carries cargo. It flies to the clouds. feeyokan dhammaantood saad aragto way bay ku dhamaanayeen waydii baynu tuurnay ay baynu ku bedelay deedna yes baynu ku darnay. kanina way buu ku dhamaanayay ay baynu ku bedelay yes baynu ku darnay. kanina way buu ku dhamaanayay ay baynu ku bedelay yes baynu ku darnay. tusaalahaan feebkan cries asal ahaantiisi muxuu ahaa cry. carries asal ahaantiisi muxuu ahaa carry. flies asal ahaanteedii muxuu ahaa fly. maxay ku wada dhamaadeen y, laakiin muxuu marka hore ku dhamaado wayda kasii horreeyey consonant a, consonant a iyo consonant l. xarfo shibanayaal bay ku dhamaadeen. haddii ay dhacdo feebku inuu ku dhamaado xaraf shibanaa deedna xarafkaa shibanaa uu y xagga dambe kasii maro, subjectigiisuna uu noqdo he ama she ama it amaba uu noqdo noun singular, feebkii wayda ku dhamaaday waydiisi waa la tuurayaa ay baa lagu bedelaya deedna yes baa lagu daray. tusaale ahaan he cries the whole night, habeenkii oo dhan buu ooyaa. The plane carries cargo, diyaaraddu waxay qaadaa xamuul. It flies through the clouds, waxay dhex duushaa diyaruuraha ayay dhex duushaa. marka xeerkana saa wahay oo isagana saa u fahan. waayahay waxaan filayaa inaad fahantay. haddii aanad fahminna muuqaalka ku soo cesho wixii su'aal qabtanay soo weydii. cashirkeenu maanta halkaasuu ku joogayaa. waa inoo iyo cashirka ku xiga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتقلي.